dagaal aad u qaraar oo saaka aroornimadii soo bilowday ayaa daawadayaal saldhigii ciidanka Jubbaland lagu qaaday ilaa iminka soconaya kooxda shabaab oo dhowr jiha dagaalkaas ku soo qaaday ayaana iminka sheegaysa tire ciidanka Jubbaland oo daraawiishta inay daawadayaal dileen dagaalka ayaad moodaa markis dambaysin oo sii qaraaranayo maxaa ka jira in ciidanka Jubbaland daawadayaal tire ciidana laga afduubtay kooxda shabaabna warkooda maxaa ka jira maadaama ay sheegteen Kudaa iyo Burgabo inay haatan la wareegeen isla markaasna dagaalka haatan soconaya awood aan la filayn ku soo bandhigeen saaka aroornimadii maadaama uu dagaalkaas soo bilowdana ciidanka Jubbaland gurmad degdeg ah miyay heli karayaan haatan dagaalka soconaya aad ku kulul oo shabaab iyo ciidanka Jubbaland socodna meeqa ayuu ka soconaya daawadayaal waxaan ku dul istaagi doonaa dagaal aad u qaraaro iminka ka soconaya Jubbaland gaar ahaan Kudaa iyo Burgabo ayaan dul istaagi doonaa saatay muuqaalka laag dhaw si share garay aragtida ku aadan dagaalka haatan soconaya oo ciidanka Jubbaland la gaaday wixii kaaga baxalka ugu wadaag mar kalena waxaan ka codsanaya inaad ugu cusubtahay channelka subscribe leh si maalmo baad oo wararka ugu dambeeya guudaan dalka iyo degdega notification kana furo soo dhawaada waata daawadayaal dagaal aad u qaraar oo saakay salaas subax soo bilowday ayaa ilaa haatan ka soconaya Kudaa iyo Burgabo wuxuu u dhaxeeyaa ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kooxda shabaab oo dagaalka soo qaaday dagaalkan ayaana daawadayaal iyadoo la filneen oo goor hore aroora oo isla markaasna waaga aan bariin goor hore aroora oo salaas subax lagu jiro iyadoona daawadayaal ciidanka shabaabna ee halkaas iyagoo lugeynayo soo galeen waxaana la sheegayaa marka horeba gawaari qarxaya inay saldhigyada ciidanka Jubbaland ee daraawiishta ku bartilmaamsadeen kadibna dagaal toos u xigay dagaalka ayaa daawadayaal markii ilaa iminkan il hadlayo soconaya wuxuuna ka soconaya laba aag sida Kudaa iyo Burgabo ayuu ka soconaya markas dambe waxaad moodaa dagaalku inuu sii xoogeysanayo ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa daawadayaal iminka la sheegaya marka tire ciidana in laga dilay sidoo kalena ciidan dhowr ah in laga afduubtay dhanka shabaabna waxay sheegeen sidoo kalena khasaaro ba'an inay u geysteen oo dhanka saldhigyada iyo sidoo kale ay sheegayaan in hub ay ku furteen sidoo kalena wixii meesha ka dhawaa oo saanad ay heli karayaan iyo dawooyinna inay sidoo kale qaateen kooxda shabaab ayaa sheegaysa marka in dagaalkan bilowga ugu dambeeyay iminkii qorsheynayeen waa sidii barahooda gaarka ku qoreen sidoo kalena waxay sheegeen ciidanka daraawiishta Jubbaland inay mar walba ishu ku hayeen daqiiqad walba daawadayaal ay ku soo fuulahayeen ciidanka daraawiishta Jubbaland oo dhankooda markuu muuqan karayay kuwa is dhigtay ayaa marka la sheegaya dagaalka lagu soo qaaday inuu gaadmaha maadaama marka hore lagu soo galay kadib qaraxyay xigeen kadibna dagaal toos oo sidaas ku bilowday haatan marka waxa la sheegayaa in dagaalka daawadayaal marba ka dambeeyo soo kulaaniyo dhanka ciidanka Jubbaland waxa la sheegayaa inay iminka gurmad ay dirsadeen oo daqiiqad walba gurmad oo soo gaari karayo eega dagaalku ka soconaya daawadayaal ayaa la sheegayaa marka in labada ciidan iminka daawadayaal ay isku muuqdaan isla markaasna rasaas noocyadu kala duwan iyo hubka noocyadiisa kala duwanna la isku adeegsanayo dagaalka haatan soconaya marka daawadayaal ayaa ku soo aadaya iyadoo raas Kamboni toddobaadka lagu soo bandhigay 12,000 oo ciidanka Jubbaland ah kuwaas oo tababar loo soo xiray isla markaana Axmed Madoobe halka uu kula hadlay waxaana ciidanka loo sheegay inay daqiiqad walba dagaal gali karayaan isla markaana wuxuu sheegay in ciidankan tababarkoodii iyo saadkoodii wax walba loo dhameystiray mar walbana ay ka go'an tahay inay dagaal ay qaadaan iyadoo marka ciidankaas tiradaas intaas leeg Axmed Madoobe marka daawadayaal tababar soo xiray isla markaana hadal adagna daawadayaal Axmed Madoobe halka kaga dhawaaqay ayaa marka dagaalka marka waxa leeyahay taas ayuu daba socda oo ciidankan iminka shabaabka oo halka dagaalka ku soo galay waxa leeyahay hadalka iyo daawadayaal ka bidiidinayn maadaama trainta lagu ciidanka Jubbaland la soo bandhigay iminka waxa la sheegay marka inuu dagaalkan sidaas marka daawadayaal ku bilowday maadaama daawadayaal sida loo ogyahay ee shabaab mar walba ay ogoleen ciidan Soomaaliyeed tababar loo soo xiro isla markaasna tiradooda saxda iyo awoodooda la soo bandhigo sidaas iyo marka daawadayaal dagaalka saako ku qarxay shabaab ayaa la sheegay marka in xarumo kala duwan oo ciidanka Jubbaland ay bagsadeen waxa lagu waaweynaa saldhigyada halka ku yaala oo ay sheegayaan inay cagta mariyeen oo wax walba halka yaalo sida gaadiidkii daawooyinkii saadkiina inay rarteen dagaalka markii soo sii xoogaysanaya wararka qaar ayaana sheegaya oo shabaab ka madax banaan in iminka Kudaa iyo sidoo kalena Burgabo ay gacanta ku hayaan laakiin Jubbaland daqiiqad walba daawadayaal waxa soo gaari karaya gurmad oo la filayo in dagaalka daawadayaal uu ku sii xoogaysan karayo shabaab ayaa la ogyahay marka daawadayaal bilii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyay xarumaha dawladda meel walba ku yaala inay beegsanayeen sida loogaana waxay isku dayeen dhowr xarumood inay beegsadaan kuwaas oo qaarkood awood loogu saaray halka kuwa kale qaarkoodna iyagay ku taalronaadeen dhanka kale sanadkii iminka dhamaadan waxay u muuqan karayeen inay awoodooda soo labajibaarayaan isla markaas xarumo kala duwan dawladana ay gacanta ku dhigeen sida Moqokori iyo Maxaas
oo weli ilaa iminkaan il hadlayana ee weli ay gacanta ku hayaan shabaab ayaana dowladda haatan jirtay xasan sheekh maxamuud marka waxay isku geysay awoodoodii maadaama dhaqaalihii daawadayaal ay meel walba ka heli jireen isha lagu hayo sidoo kalena meel walba lugta dhigaanna isha lagu hayo dhanka kalena sidaad ogtihiin caasimadda magaalada muqdishona sanadihii ugu dambeeyey wax qarax kama dhicin isla markaana taatika walba iyo qorshe walba ay soo maleegaanna waa laga hortegi jiray taasoo la xiriirta xagga qaraxyada iyo dilalka iyo sidoo kale wax walba ay ka geysan kareen muqdisho dhanka kalena waxaa lagu guulaystay in labada ex control iyo meel walba daawadayaal ciidan la dhigo jagboontiyada walisiyaadkii amnigiina kor ayaa loo qaaday sidoo kalena sirdoonkiina tire ay maleysanin ayaa lagu soo kordhiyey kuwaasoo cagta u saaray meel walba daawadayaal ay bamba ka tuuri karayaan ama qarax ka geysan karayaan ama dilo ka geysan karayaanna daawadayaal ciidamo kala duwan oo dharcada ayaa lagu daadiyey taas ayaana keentay marka inay caasimadda ka kulumaysan karaynin isla markaasna ay soo dhaafi karayninba afgooyi iyo wixii kasii banaanka taas ayaa keentay marka daawadayaal in awoodooda iminka gobolada iskugu geeyaan caasimadii kusoo haweysan karaynin waxay iminka daawadayaal marka ay doonayaan ama mar walba ay ka go-an tahay in awoodooda kusoo bandhigaan gobolada waana sababta maanta keentay in dagaal saaka aruurti bilowday ilaa iminka ka soconayo Jubbaland gaar ahaanna Gudda iyo Buurgaabo haatan ay sheegayaan marka dagaalka soconay inay iyaga ku talroonadeen maadaama ay ku faaniyaan in Gudda iyo sidoo kale Buurgaabo ay gacanta ku hayaan ciidanka Jubbaland daawadayaal awood u sheegteen sidoo kalena saadkii iyo daawooyinkii iyo gaadiidkii iyo saldhigyada halka ciidanka Jubbaland ku lahaayeen ee sidoo kale ay rateen Axmed Madoobe ayaa la filayaa marka daawadayaal saacadaha soo aadan dhankiisa inuu shir jiraayada arrintan ku saabsan uu qabto isla markaasna uu ka hadlo xaaladda saxan ee iminka dagaalka daawadayaal uu ku sugan yahay iyo wax walba daawadayaal halka ka dhacay Axmed Madoobe sida la ogaa daawadayaal waxa lagu xamaliyay in ciidankan shabaabka ee tirada yar ee dhankan Jubbaland daawadayaal ku dhaqan inay mar walba ka go'in inuu la dagaalamo isla markaana dhanka dowladda Soomaaliya ayaa mar walba kaga daashay inuu la dagaalamo awoodiisa halkaas ku soo bandhigo maadaama la ogyahay in dhankaasi Jubbooyinka iyo nimankan shabaabka daawadayaal ku xoogeysteen sanadihii ugu dambeeyayna ee halkaasi ku maaliyeen waana sababta iminka keentay inay isku dayaan in xirooyinka ciidanka Jubbaland ay weeraraan awood balaaranna ay maanta ku soo bandhigaan dagaalkan ayaa marka moodaa inuu sii xoogeysanayo ciidanka Jubbaland loogu taloronayo waa sidii barooda gaarka ay ku soo qoreen dhanka Jubbaland inay iyaga ka hadashana saacadaha soo aadan ayaa la filayaa oo madaxweynaha maamulka Jubbaland isagana ka hadlo oo shir jiray daawadayaal arrinta la xiriirta oo ka qabto wata daawadayaal dagaalka marka wali waa sii soconaya shabaabna wali waa faaniyaan dhanka Jubbaland wali hadal laga maayo dagaalka markaas dambeysana daawadayaal baraha gaarka meel walba waxa lagu soo qoriyaa in kooxda shabaab ay wali ku talrooneen waxa kaaga bacragtaa suuqlada muuqaalkana sii sheer